الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد وودنك أستراليا مقالة بريسبان ومسجدك مروكا مسجد ما أنت قصة أندونيا إنا إذن لو ذاقو وقصة هذه آد معان تلمامي سنة رقا إيا مسؤوليات كودا قاركود رقا قارب آدي آد الصبر بدن قصة أيضا صوّدو وقصة لنا عمرك لغا فيريو دروس بدن باكو جيرتا لنا وقصة آدي آد معان وقصة قابا وانا قصة دير هاد بقاب كالوردقا أي كحرانتهاي قصة دونا سيدان صوصعوتا أي أوبلابتي رقا يدومركا بني آدم كوو إسقبتا لبدا إسقبتا قريق النبي صلى الله عليه وسلم أيابا كان بتقلي وايي خلاف وأنا طبيعة البشر كل ابن آدم خطاء ومع ذلك وحكا الصورة وحا لغا قدبا صبر إيا الدلقاد أيا لغا قدبا قصدني وحا يوضع عضي نين إيا حاسس قبا أيا مال المالمها كميدا وحا يوصوا فريستين قدا أيا يوصوا فريستين والعجيب قدا آذي آدو معان أيا هو يدو مالين تاد دياريسي عرورتي أو فصحة أيا قريق إسكوغو إماضي وقور ظهورة قريق أيا لتشوغا قريق وقري يعني فيلا عمله وقري هودو أي كفرانتو آذي آدو معان وما آذي آدو قروح بدن وحيكو قروح بدن تايو سي قرحينيا reerkii ayaa wada qadaynaya waana mid ugu qiimo badan oo aad iyo aad ugu wanaagsan u fiican mar alla markii qadada loo fariistay wax ku dhacay lama garan haye gabadhu waxay soo gocotay lama garan haye gabadhii si ayay u carootay wax ka caraysiye aad looma garanayo laga yaabaa wax hore inuu ahaa si kastaba ha noqotee ficilka ay gabadhu samaysay iyo ninku jawaabtii uu ka bixiyay weeye darsiga muhiimka ah ee inaan fahamna la doonayo waxay u dhacday gabadhii waxay samaysay waxay aaday talaagada ayay aaday 2 litar oo caano ah ama 1 litar oo caano ah ayay talaagada ay ka soo bixisay wal cajiib caruurtii oo meeshan fadhida qadadina loo fadhiyo guriga dhexdiisa iyo fadhigiisa la joogo jawigu aad u qurux badan yahay aad iyo aadna loo faraxsan yahay aad garanaysaan ayadoo lala qadaynaya aabe caruurtu ay la qadaynayaan waa farxad gooni ah hooyadiina ay halkan joogtay u adeegayso hooyadu maxay samaysay waxa laga yaabaa cimrigaaga oo dheeraaday geel dhalaayana waa ku tusaaye inaadan marna ku fikirin qisadan ayada ah soo socota ee doonaya maanta inaan kula wadaago hooyadii waxay samaysay caanihii ay liitarka caanaha ama 2 liitar ee ay ka soo bixisay talaagada ay ka soo bixisay ayaa odaygii oo fadhiya labiskiisana qaba meeshii cuntada lagu cunayayna roogeedii u yaalo caruurtuna ay ka soo horjeedaan ayay bilowday inay madaxa ay kaga shubto ilaa ay kaga dhamayso suurayso suuradaas ayada ah waqcadaas ayada ah dhacdadaas ayada ah mar waxaad fiirisaa caruurtii mar waxaad fiirisaa aabihii fiiri mar waxaad fiirisaa ficilka naftiisa fiiri say wax u dhaceen maxaad adigu samayn lahayd haddii aad aabba tahay oo hooyadu ay arrintaas samayso laakiin kama wado hooyadu inay samayso arrinka inay wanaagsan tahay la marna lama ogolo caruurta oo joogta afcaasha noocaas oo kale in la sameeyo waayo waa tarbiya xumo weeye laakiin hadday ku qabsato oo ay dhacdo maxaad samayn lahayd qisadani ujeedadeeda waxaan oga jeednaa bal waxaad samayn lahayd arrintan iyo arrin lamida hadday dhici lahayd aabba haddaad tahay madaxweynihii guriga aad tahay mas-uulkii guriga aad tahay arrijaalu qawaamuuna oo alla yidhi subxaana wa tacaala waxaad samayn lahayd ayaa la doonayaa inaad si fiican aad u fahamto maxaa dhacay marka arrintaa bal aan qisada meeshan quruxda badan ee biyaha ah aan ila daawada say qisadu si qurux badan idinku degto باذن الله تبارك وتعالى ايها الاحبه في الله ninka asaga ah waa iska fadhiyay qisadii baan idin waday waa iska fadhiyay illa litarki ama 2 litar ee caanaha ah lagu dhameeyo muxuu sameeyay ninka baad u maleeynaysan muxuu ku qanciyay caruurtiisa baad u maleeynaysan dhibaatada qabsatay muxuu kaga baxay baad u maleeynaysan ficlan dhibaatadii way dhamaatay ma aha wax layga sheekaynayo waa waxaan hor fadhiistay ما ها شيء la soo guuriyay oo internetka lagu qoray oo qiila waqaala ama aha waa wax aniga aan arkay oo mataqaan aan hor fadhiistay weeye waxa dhacay baan rabaa inaad ii dhameystiro ninkii caruurta ayuu eegay caruurta ayuu fiiriyay kadib ayuu wuxuu yiri aabe maxaad u maleynaysaan arintan hooyo ay samaysay maanta meeqa sanad isqablaad u maleynaysaan anigii hooyo waa sanad guuradaanadii dhowr iyo 20aad 25aad sida daraadeed annagu hadaanu nahay Soomaalida qofka aanu doonayno inaan ugaas ka dhigno qofka aan doonayno inaan darajo sare siino
qofka aan doonayna inaan boqor ka dhigno caano ayaa lagu shubaa waana xaqiiqo Soomaalidu arrin jirta weeye in qofka mataqaana la boqorayo caano lagu shubo hooyadu marka waxay u jeeday idinka oo jooga fadhigana fadhiya qadaynayo cunto cunaya inay idin tusto idiina sheegto inaan maanta laga bilaabo boqorkii reerka ahay nin wanaagsanna aan ahay sida daraad bay hooyo caano iigu shubtay sida oo la socda qisadaasi waxay dhamaystirtay waxay meesha ka saartay murugadii caruurta yaryarka ahayd waxayna isku dhaweysay reerka ay isku soo dhaweysay laba qodob baan qisada ooga baxaya ficilka noocaasa waa ficil xun in la sameeyo caruurta dhaxdeedana ma haboono arrinka ayaan lagu degdegin dhinaca kale aad baan ugu mahad celinayaa xilmiga iyo dulqaadka iyo sabarka iyo xigmadda ninkaasi oo caruurtiisa kula dhaqmay reerkiisana arrinta ay halkaasi ay kaga dhamaatay aad baan idin jeclahay intaan kaga kulmayna xalaqo kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu